دين شيء أنا ننقبن هلا الشعر قرية وحلي هذا بغضن أما عبسي أما ولول ما قبوا يستكلوا عن هاي نين اللي يراو دجال كتير دجال كقف بقول جرينو وياه قف دولتي كمذا قولي وسير هذا كمذا برلمان كي كمذا أن قف نوع عاسويان قف كأنه هذا عن دجال كتير أن ربنا نسكدعي قف نوع عاسويان قف نوع عاسة ويان قف حسان الله وقف كفر ليا مقام شرعي أو دولي أو كفر ليا ويان أنا أقول وحنا هاي أنا ندين شيء وحنا نروح أنا فنان صومالي فنان مدة صومالي تسمع فنان حمر مقالة دي ستاي فنان جيجي أي مقالة دي ستاي فنان إكسماي مقالة دي ستاي فنان أي هرجيسة مقالة دي ستاي فنان أي قروي مقالة دي ستاي بهذا الكيس صفي عنها الوضع الشعب كالصومالي أنا أقول تهربينا نهرت إدين شيء وحن ربينا يعني إدين لو ذاك إن أهاي قف نحضه بلا تقول في هذا الكاس قف نحضه أنا عندنا لجين قف لد على دعيو لد ذاليو نولشيسة أساسية إيو بيزك لايف كوحلو يقانو قف لد على دعيانا ما يهي يعني شيء ما يهي نن عسكر وطو ما يهي نن دبابات وطو لوردينيو وحنا هاي قف نولشيسة لايف كيس كونيجا لانول انت اسكدب وان رجينيا ان شاء الله dadka xaqan iga daawanaya dhamaantiin inaad iga qaadateen oo iga aqbasheen raali gelintaas buuxda oo shacabka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed oo i daawanayay oo dhagahooda ay ku soo dhacayeen shalay toole eraya aan ku habboonayn oo munaasab ahayn iga raali ahaada 100% ugu maanan tala gelin inaan erayadaas dhahe way iga fakatay waxaana iga tanbadisay cadiifada iyo waxa iga tanbadisay hala sii shirgaray waxa iga tanbadisay dagaalka ay gula jiraan qoladan dagaalkaas ayaa iga tanbadiyay inaan erayadaas isticmaalo waad taqaanaan waligeey Allah intaan live-ka isticmaali jiray ama shakhsi xitaa mucaarada jiray waliga qabiil ma aan adeegsan jirin laakiin aniga waa la ii adeegsaday ma iloobi doono mana hilmaamayo eraygii shalay ahaa xamar meeshan jigjiga ma aha wala fiirso hadalkaas jigjiga ma aha go to jigjiga ordo jigjiga aad oo dhaantada aad jigiso ku soo bandhig qofka saasi dhahay ma garanaysan waa wasiir waa xildhibaan waa qof ku fadhiya maqaam dawli oo sharci ah qofka aniga sidaas dhahayo intaas waxa ay dheer la aha xaalado kala duwan oo iga soo gaarayay dad la adeegsanayo ama la soo diray waayo waan ogahay Khadiija anigu toos ima soo aadi karto way garanaysaa shiino wadayam ya hooyam way garanaysaa waxa qofka aan anigu ahay way garanaysaa ayadana waxay tahay waad garanaysaan ayada way garanaysaa anigu marka muhiimadda ugu weyn oo hadda live-ka u soo galay waxay tahay inaan laba qodob inaan idin la wadaago labadaas qodob ah maxaa xal isbedelay ilaa saacada la joogo maxaa isbedelay war maxay soo wacayaan waxan bolshiidka maxaa isbedelay maxaa soo socda maxaa filaysan horta hal arrin ogaada wallahi anigu horta cabsi ma qabo laakiin waxaan idin sheegayaa haddii aan u dhinto dhereg haddii aan dhereg u dhinto wax kale iska daay haddii aan dhereg u dhinto waxa mas'uulka ah khadiija diiri xataa kalima dawladdan ayaa mas'uulka waayo khadiija dawladda ka tirsan tahay Soomaa maxaa ku filan cabdi dhaanta orod hala soo xidho intaas ay ugu filan Soomaa haddii la yimaado loo dhigay malahan kali waan galaya aanu nande mana diidayo awooddaasna way leeyihiin Soomaa ilaa hadda wax arintaas iska bedelay malahan de wax iska bedelay malahan shalay toole haddii ay ku raali gelinaysay khadiija waad ogtiin qofka ay tahay ilaa dawladii hore la soo sheeqin waa islaan Mariana oonan qowl xira lahayn oon ilaahay ka cabsanayn oon bini aadam ahayn oo laba wajiila fiiri laba wajiila naag waxa weeyaan laba wajiila hadde malaha mabda iyada u gooniyaha ma jiraan mabdaeedu waa inay calooshaad u shaqayso oo kolba dawladdu timaada iyo cidii timaada ay sacabaha u garaacdo intaas weeyaan ما أهم موقف كذا مدفع اليوم يالكو قطمة ما أهم we know
وان أجنها تاس وح أنو كدرك سنة وين درى الدولة حسن الشيخ محي سمينيس شلت على حسن على خير مركو ماشي في الديوانية ماشي اللي يقول حميني اللي يقول بهدلي هساه بلد وابري أي قاضيين هايقرر على هذا الفنانين تيدتك مسؤولين تسوعية هذا بندي بدن كلا هذا الدونات دتك سوعية أنت لايفك كجري قد داية بالله عليكم هايوك عنا ديجي هايوك عنا نربها نبى استاكسنة وان أجن هاي وان كدرك سنة هاي وان أكتين ما أنت حامل مجرى شرعي كلا دنبين مجرته عدالة مجرته محكمة لو كلا بقى قرصور مجرى وح هذا يراتك كجرا ملهن وانو والله بابا على وشاقي يلا فاقي أفكاقة ينكو عيرين نينكي مسكين ولا ويانا وحبط كما أكون على أما توصي برير اللود أنا هذا ولا يدلك كرا قبل إيربوت كده هذا اللي توجنيسو قبل مساكين ما ينهين أما كذا لا علينا يو أو ماشي وضن كلا حكم اللي قد لي ده أنا محانا مرك أنا محانا مركز حاجين تاجنا مرك يعني وحاويا بيلقوا ما كبنا ويان هلا سيشر قرية لايف كجان مرك أمد الصوماليات جارهان دتك قربها كنا دتك الديوة كنا أو وضمد عدالة دي كلا ضمنت يا شرعي وكشق يكون الله إلى صحريري أو يجول والسنات أو أهلك يا أصحابته يدتك الصوماليات بله وحنا ذي الشيء يا وانا ما غبا لباتني مجرته وعلى سنين مجرو لكن حالة ده أوكي وانا لكن وحنا قف سوق يا عدالة رباه إنه سوق عرفت تاسنا إلا إجا قنعيه مويا سدنا حالة إنه تجنانسه markii la iga qanciyo oo leeyahay Cabdi Dhaanto la hor fariisto dadka wadankan madaxda inta ay soo fartay leeyahay maxaad ka tabanaysaa maxaas lagu sameeyay arintaasna khalad bay ahayd markaas baan kala garbaxayna inta ka sugayso Soomaa dagaalku soconaya dhufeeskana waan ku jirayaa ballan Ilaahay weeyaan ama iguna ama igu jeclow isabti waxay gala malahan aniga isabti waxa kale oo rabaa inaan sheego maxaa ku qornaa boorka dhalinyaradu waa milkiilayaasha dalka ayada hadda soo qoraysa ayada dhalinyarada anigu dhalinyarada kamid ma ahan miya ma doon baana ma waxaan ahay ma xaga maxaan ahay anigu mise say hadalka u dhigtay ahayd ba goobta jigjigaana jigjiga magaalo Soomaaliyeed kama faanay waan ku dhashay xuduntayda ku duugan tan ana iskale tan aniga iskale waa magaalo Soomaaliyeed waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed hala share gareeyo live kan hala share gareeyo anigu indhihi bulshada aanahay dadkii lagu daysanayanahay ma ahan waxyaabo aan loo baahnayn dadka xitaa inaan horseedo saxma xaqana inaan ka aamuso saxma xaqa inaan ka aamuso saxma dadka inaan wax aan haboonayn aan horseedana saxma tan marka waa xaqi waxaan xaqlayaasha wadanka ayaana dhalinyaradu waa milkiilayaasha dalka boqolkiiba intaas waa percentage anigu ma hidde dadka de ma aha bahalka aan xal sheegay magaciisa mar inaan sheegay oo la isticmaalo inta hal mar la gashto may hasha ma ihi qof la dirsado la isticmaalayo caawa 10 kan waa inoo ballan dadka hurda na message waan gaarsiin doonaa kuwa hadda hurda ma aha kuwa hadda soo jeedana isku waqtay kuwaasna message waan gaarsiin wayna soconaysaa uguma talagalin hadda inaan caytamo oo maxay soo wacay ugumaanan talagalin laakiin awooda iyo kartida raganimada igu jirta inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego oo ay arkaan intaasan doonaya bas hala share gareeyo live kan hala sii share gareeyo ummadda Soomaaliyeed hala sii gaarsiiyo waa dulmi qadiijad diiriye waxay ku fadhidaa maqaamkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxay wasiir u tahay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waa hadii sida saxda loo dhigo hadii dad la soo aruuriyay oo afar wax laga keenay ay wasiir u tahayna ima qusaysa taas oo ku ilaashanaysa kursigeeda iyo mashaariicdeeda ay rabto inay nafteeda ku nolosheeda iyo midda ay ku dabarto laakiin waxaan rabaa inaan sheego inaan ahay nin muwaadin Soomaaliyeed fanaan Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxa lagu faanayo dhalinyaradu hadda soo baxaya oo lagu faanaya kamida haddii ay noqon waayo oo Khadiija tiraado kamid ma tiid kamid ma bihi aniga laga saacadan laga bilaabanayo ima matasho markii laga yimaadana aniga waxaan hoos joogaa on ku faanayaa calanka Soomaaliyeed
على كاس صومالية موجودة حق إنه يقول حرية حق عنتنا يقول حرية جعل أنا قبضرتيس وحنا حق لياش والله في هذا الكاس تاس مركي اللي جي مادنا أمان كيجا iyo xaaladaha iyo kale waxa mas'uul ka ah gobolka Banaadir ayaa mas'uul ka qadiijo waad ogtiin ciyaartii finalka gobolka Banaadir baa bil ayada madaxda u baaqatay leerkii demisay waad ogtiin taariikhda waad ogtiin dib u baara leerkii demisay ciyaartii dib u baasay yaani ciyaalo suuqnimo heerka ay ka gaadhay iyo heerka ay ka gaadhay maxal dhahayay ay ka gaadhay waad ogtiin waana lagu taageeray waana lagu wataa وما ملاينا يا هاد درتنا عبشة إذا واحد لقى قبنايو لكن أنا واحد دياره عبشة إذا إلا إنها نجود فيو ودتك أي قصيص عبشة إذا أي قادان واحد يدل يرد الصومالية ويقول حرام يدتك الصومالية لقى لي هاي مستقبل وارا هادي بروباغندا إيو محل ده هي لقى روا إيو إلا استعماره لقشته تاسنا ما قرنايو I don't know ما قرنايو ما قرنايو خديجة صناك تسمينهن صومينهن قفتي عيارتي قبل كمنادر باجسي دي عبد الأنت ميو دايسا يقدك بيتر المسرح يقدك ما ياب هل كان جيجيجا ما هابيتر دانتنا لوغا ما باهن قوتو جيجيجا وليغا يعني قف كستا او عقليgiisa uu shaqeynayo oo muwaadin Soomaaliyeed wuxuu adkaysanaa maadi qofkii aqli loo aqoon lana way dhibaysaa dawladda Soomaaliyeed maxaa diiday dhalinyaro waxa jooga 30 da'dooda ay dhantahay PhD mastersa aqoon leh ka aqli badan ka maskax badan sida dadka loo maamulo garanaya habartan cajuusada maxaa dadka loogu abiyuusaya oo madaxa uga taagan dhalinyarada madaxa uga taagan maxaa dhalinyarada loogu abiyuus garanaya sababtaan idin sheegaya marka sababtaasaan idin sheegay rabaan idin cadeeyo sababta waxay tahay lama rabo qof dhalinyaro oo maskaxdiisa saliimta oo aqligiisa shaqeynaya lama rabo ninkii maskaxdiisa iyo aqligiisa iyo fikradiisa ay shaqeynaysana laba mid baa lagu sameeyaa in la shirqoolo la dilo in la basaaso يعني in la basaaso la shirqoolo la dilo iyo in la handado la yiraahdo ma hadli karto juq laakiin cabdi dhaanta qofka saas la dhahayo ma waayo shacabka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed maanta way og yihiin wax walba ay soo gaara cida ku lug leh way og yihiin ma umaleena hatta hadii soo gaara inaan cadaalad heli doono oo la baari doono cida yani dhib gaarsiisa in la heli doono oo cadaalada maxkamadda saar doono ma umaleenayo mana ahaba mana dhici doontaba waayo waan ogahay xamar 12 sano jooga wixii ka dhacay waan ogahay wadankan ayagoo qolooyinkii kala xukumaan baan joogi jiray wax ku baranay marka dhaqankeeda waan aqaan la igama sheekanayo xamar maxaa ka jira leeyma dhahay xamar waxa ka jira waxba la igama sheegay anaa nin waajibaadkiisa shaqo waajibaadkiisa qaran gutaanahay nin calanka siyaasi Soomaalinimadiisa iyo maxaa dhahay dhalinyaranimadiisa magaalada ku joogaanahay qof kasta oo dhalinyaro Soomaali u yaqaan markii la qaado macallimiinteeda dadka asxaabteeda dadkaan hadda wax wada barano dadkan ba wadaagtanahay oo dhan markii la weydiiyay Cabdi Dhaanta waa qof noocan way ku sheegayeen waxaana Cabdi Dhaanta waxa ku leeyahay dhalinyaro firfircoon oo saas weeyaan dhalinyaro hawshiisa watooyaan anigu hadda haddii aan dhaho waad ogtiin waxaa kaloo rabaa inaan digniin yar idin siiyo waxaa jiraan beejij feega ciwaano feega laga sameeyo been abuura waxaa jira kaliba aniga aan leeyahay oo la jarjaray oo codad la saaray ka digtoonaada arrintaas aad uga digtoonaada xaq u dirirka dadka xaq u dirirka hawaaran adeer waqtiga maanta lama joogo waqtigii qofka afka la qabanayo waa ma joogno xaq u dhimo xaqa u dhimo maalin baa la dhintaa moogta